Habari yako? Nzuri sana. Karibu Kenya. Asante sana. Faras maxaa lagu dhahaa? Faraas. Problemka Soomaaliyeed haysto waxa waay all over the place and you don't have a niche. Oo yani hadda one specific thing lagu yaqaano kaas lagu soo raadinaa. Wax uu hore horta influencer-ka laga rabo inuu yeesho waxa manager. qof adi laga soo xariiro you don't go to talk to people ayaki inay ku soo raadsadaan then you say like manager-kayga joogo go talk to him yani dad badan oo followers badan haystaan way jiraan but they are not influencers influencer waxa waaye qofka yani dad ku xiran bedeli kara ama wax u sheegi kara ama ra'yigiisa qaadan karaan laakiin hadda intaas adi sameyn karin oo million subscribe na haysatid you are not influencer like libiskay dad badan ka hadlo laakiin me saameys I don't care like sometimes waxa dhacdo eventyaal inaa la tago maybe darweyn inaa soo xirto wah tan libis ma taqaan maxaa waxay soo ciratay I'll be a politician by that Oh my days Oh my but like one or dadkiisa wax u qabto oo si fiican wax u sameeyo not the politicians oo hadda jiraan you will take me to Wajir I'll take you to Mogadishu social media waa ka cabsi jiray basically so and it happened like a lot of people in sameystaan wali soo raadina so meelahayga dhan waxa deactivate dhahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا قيب كلو مهدي شو ما أنتوا حان نصيب ويا نصيب أدوين إنا نلقوا لنا قبر ولا شيء كوكو بوله أو influencer Somali one of the best Somali influencer عنده كرا أو نماركتي آدي يدك دلني رد آدي بحريين especially دلني رد بقول بري يعني نصيب ويا ما تنا نلقوا لنا أو one to ay maartay wacyigelin ama mentorship ee usoo bisada dhalinyarada Soomaaliyeed especially kuwa qoybari ani kuwa qoybari baa mar walba ka hadla maadaama dagaal badan loo qalda dhalinyarada Soomaaliyeed but maanta nasiibkaas aan u yeelanay ee Coco Bule soo dhawaada waxay aadaan u faraxsanahay inaan mahadi show maanta afadhiyo ma sha Allah afsaxlan ku weydiino inaad ka jawaabtay habari yako nzuri sana okay karibu Kenya Asante sana. Asante sana. Shall I برنو زاي. Yeah, واحد ما. كاريبو كينيا. Asante sana. Good. السؤال كمشان مهم وكي هاي. لكن معلنا ولا فديه. معلنا كبري طبعا إن شاء الله. Already وحيري صبرتال. فرس محل قدها. فراس. محكو دري صحن. صحن. صحاني قلم قلامو بس وحول بأركو في Soomaaliya لكن وحيرة كوسي دراسة كوسي داو سأورتها وطن كينيا سينسا هذا كوجو هريسة والله this is the first time هرتي معنا كينيا قوة زايدة بسوق دبيسة لكن حوالي عندنا على 5 مليون ويا حلو حنا ما تعرف يا حلو وينتر ما تعرف ها مو مليونين لكن وينتر يا دس قوة مو مليونين لك وحيريس وحاسك مليونين قوة عادي يا dhalinyaro badan oo markaan dhahay Coco Bule ayaa rana wareysto oo horta ku soo salaamay jiraan dhalinyaro badan oo aad ku taageera gobolka waqooyi bari ka yimaadeen gobolka waqooyi bari markaa kale waa Gaaris Wajir Mandera wili ma tagtay Gaaris Wajir Mandera maya laakiin qorshaha way jiraan inaad tago insha Allah waan diyaar laakiin Wajir ka bilaabaysaa diyaar soo dhalinyaro salaam bay ku soo gudbiyeen salaanta horta naga gudub aad iyo aad ku taageeraan shaqada qabanaysan at least influencer badan oo aragnay but your influence is a little bit sa aniga rabi aniga dhahar mar ma jira podcast aan keenay on social media influencing dhalinyarada waxa laga rabo waxaan qayb uga soo qaatay nin dhalinyaro Soomaaliyeed oo wadanka u dhashay oo influencer oo qolo shirkad weyn u maadeen oo rabay inay partnership la subiyaan ayuu meel hotel ku bilaamay oo buuq badan presentation wadanin waxba wadanin manager wadanin قلدنا واسكت تجين so مركان في the way you doing influencing is a little bit total different واسان أنا قارب إني أوصل بيان so that's one of the reasons ما أنت عن ربنا أول شيء كيسان سيدي دلنا يراد Soomaaliyeed وكجرا influencing business كا سيأقول فايسان لهين بس أشوف كده نقول بلاون بالكوكو يا وايبل in 1 minute
who's Coco Coco waa gabar Soomaaliyeed YouTuberad ah ku xiran yihiin 1 million subscribers like aan soo baratay two different faculties which are nutrition iyo communication laakiin hadda waxa ku shaqeeyaa communication oo yani hadda YouTuber ah so skills-ki communication mass communication ka soo barta xogaa little bit into ku sameeyno and also business women waa waxa haysta brand Coco collection la dhahayo oo ka shaqeeyo caruurta dharkooda so that's Coco for now wow nutrition soo baratay ina cayilaro nutrition ka cayil wadiideen like healthy cayil maybe but like qofkii u baahan leh waa cayil qof u baahneen ma la cayilin karo qarxis macuna qarxis steroidka ma la hor gabar kala wareystay dhakhtarada wacyigelinta kamid ah programka waxaan ka wareystay the misuse of steroids iyo dhibaatooyinka qabo aad baan u hadashay inuu aad u ani xitaa maraa ka hadlay so but like little bit backlash ayale oo dadka trainers oo yani borders ka diiday so they were like business kana like soo galaysan ay khalay caafimaad dad leeyahay business laga dhiganayo okay su'aasha kale maxaa weeye there are influencers oo Soomaaliyeed oo haysta 1 million followers 2 million followers magaalada walaan socda Kenya ka daan joogno qof haysta markii 150,000 waxay soo biyaan brand partnership endorsement xaladaha hadda haysiin maxay socotay oo techno waxay badi dadka haysiinaya oo Kenyanka ma aha dad oo hatta 300,000 gaaray anaga dhalinyarada Soomaaliyeed oo haysta 1 million followers 2 million followers what are we doing wrong maxay iska qaban lahaa target audience sax ma haystaan ani aaminsane because dadkan oo hadda sida sheegtay Kenyanka 200 300 haystaan loyal target audience haystaan an yani niche kooda fahansan yihiin laakiin problemka Soomaalida haysto waxa waa all over the place and we don't have a niche oo yani hadda one specific thing lagu yaqaano kaas lagu soo raadina laakiin trendigi socda bada ku dhex jirtid like dadka ku fiirsanayo ku daawanayo loyal customers gaar xitaa adiga ku wareeraan they don't know yani who you really are maxaa sameyn kartaa what's your niche ma yaqaanaan so marka that's waxa keenayo in oo brandiska yani arkin qofka million kaste oo arkan qof 200 haysto inuu ka qiimo badan yahay because of yani qofkaas wuxuu sameeyay way yaqaanaa but adi hadda maan social media dhax galo I cannot tell maxaa qabataa ma kaskari so problemkaas waa is dhig kara I think mal horon ka hadlay si loo soo galo social media influencing one of the things and how find a niche marka soo gasho fitness hadda xiisayso make sure you stick to fitness hadda xiisayso fashion stick to that hadda xiisayso travel dadka martay vlogs iska wareeg ana kula handa I talk about education and technology maqaayad ma xiisina yes laakiin saa sheegtay Soomaaliya waxa maanta caadaro baxaysiina birim xaysiinaya gabsar berdam bay wax la sumariyo xaysiinaya so I think that's the biggest challenge so as an influencer what kind of team laga baahan sorry team ka laga baahan inay ku shaqeeyaan waxa way ayaga I believe ma qawan team because inta arkay kaligiisa socdo so yaal raba inuu ku shaqeeyo markaad influencer wallahi horta marka influencer ta oo kaliya aad socotid it will show yani qofka branding ama shirkadu soo raadsanayso they will see like qof kaligiisa tahay so wax ka dambeeya male so they can whatever they give you like ina qaadanaysi aaminsan yihiin laakiin when oo ahaysatid athim oo kugu xiran yani wax uu hore horta influencer ka laga rabo inuu yeeshto waxa manager qof adi laga la soo xiriiro you don't go to talk to people ayek inay ku soo raadsadaan then you say like manager kiga jooga go talk to him that shows you have a value but hadda soo fariisatid oo hay ana kula hadlay maxay siini it will look like desperate not oo lacagtu baahantay of course but yani in a good way waxa ku fiican qof ku hadlo oo yani ku discuss garay ina heesid and the second thing waxa waa producer
iyo editor cameraman intaas hadaa isku heysatid waxaa dhihi karaa full influencer aad yeah koko ahaan scriptka ma lagu qoraa ama qorata aniga horta script ma isticmaali yani when in some way waa isticmaalaa oo like I already know in my head waxa sameeyay most of the time any challenges I sameeyaa so challenges it's based on real life thing so it won't be scripted mu bahnaanayo because I want like real personality oo dadkeena soo saaro so that's what I use okay qofkii raba maanta inuu influencing soo galo business and one of the things arkay oo Kenyan-kan ku arkay markay soo galaan influencing they come as a business influencing business oo arkan ganacsi oo arkan anaga laakiin Soomaalida badan waxa aragtaa inay u arkeen business ahaan qofkii soo galay what are some of the skills looga baahan because ma sahlana hada shoogan aan doon waxaan doonaa once a week dhibaatada naga haysan iyo Farxan Ali maalmo dagaal ku jirnaa it's just only Saturday ka waran qofkii influencing business ku jiro oo every day ama wax soo dhigaa what are some of the attributes adi karta habits ka ama qofka laga rabo inuu influencing for example soo galay horta to begin with markii influencer aan noqonaysid you should have an audience although audience haysanin influencer ma noqon kartid so Soomaalideenan influencing yani horta ma banaqaano I feel like ina aqoonin what is influence we just want yani ina soo galno aan noqono dadkana bartaan oo marka jidka mareen naldo oo qofkaas caan waay mana soo qadaynadi mana soo qoraan yes so ani taas ma dhihi kari influence waa yani dad badan oo followers badan haystaan way jiraan but they're not influencers influencer waxa waaye qofka yani dad ku xiran bedeli kara ama wax u sheegi kara ama ra'yigiisa qaadan karaan صح laakiin hadda intaas adi sameyn karin oo million subscribe na haysatid you're not influencer you're just a person who followers is cast okay yeah so waxa looga baahan yahay qofka influencer ka ama oo rabo qof inuu yani social life ko soo galo oo dad influence gareeyo to begin with horta to be real dadka way dareemayaan qofkii real ahaan yani cameradan it is not just yani ina soo horfadhiisatid oo yani wax iska sheegtid dadka behind the camera oo ku fiirsanaya doodii marka video soo gelisid they will know yani personality waa akhrin karaan they can tell if you're true or you're faking so hadihi lahay first if you want to become an influencer be true to yourself dadka influence gareynaysa waxa aad tahay oo sax ah ku tahay you can then you will be the influencer you want to be amazing kulli waa ku maqlaan there's another challenge misli karta when you are influencer ina haysato academic background inay fiican tahay waayo there's one Kenyan influencer who raadinayay qof influencer Soomaali anu war ay qaaday maalintaasna I think it was 3 months ago qofkaas uu raadinay wali qofkaas rabo inaan wareysto 3 months down the line wili uu raadinayo markaan wareystana comment ka fiiriso waxa lagu leeyahay qofkaas waa xilli ma garanayo mana garanayo Ingiriis so misdhihi kartaa for you to become a successful influencer when at least background leedahay educational background hada garin in luqada iska saxdo because sometimes maxay la gartaa xayisiin oo ku baxaysa luqada Ingiriiska for example laakiin influencer data Kenya joogto obviously Ingiriis ma ku baxaysa ma Swahili definitely misleedahay for you to become a successful influencer ina leedahay background تعليم yar ama language yes 100% يعني وباهنته horto لكن يعني it depends on meesha joogto صح so there is a lot of influencers oo Somali joogan صح all they need is يعني inay wax fahansan yihiin يعني at least high school education ay haystaan and يعني personality wadana fiican yahay akhlaaqdooda fiican tahay that's what they need but if you come in outside of the country or influencer definitely you have to have a educational background at least حتى English ina ku hadli kartid wow su'aasha kale waxa weeye you have been involved in
philanthropy work shaqooyin ceel baa qoday rewajeerna kusoo ina ceel u qodo وانا كم حسن تاي إلهي خيرية أجري حسنات كاسيو the best I think صدقة و بيو what is life what is life so دلنا يردا influencers كه أيضا هرتو إنه حقب صدام هرت before أنت عقف واحد وقوانين True. platform كه هايستان هدي حتى material thing waxa uu qaban keenay dadka wacyi gelin badan way suubin karaan maxaa u diraysaa lacala dadka 1,500,000 haysta oo dhalinyarada Soomaaliyeed say community-ga wax ugu soo celinayaan like giving back to the community hatta dacayl u qodaynin at least inay wacyi gelin ka qayb qaataan nacmartay bulshada waxyaalaha ka socdo ama ku hatta haystaan inay hatta short course of free hada asxaabadana leedahay oo millions ku xireen hadii course yar oo free ay bixin lahaayeen dad badan ka faa'iideysan lahaa laakiin ana dagaal badan baan ku qabaa influencer Soomaaliyeed challenge iyo maartay burbujiga la isku maray iyo waxyaalahaas baan dad doon oo fiirsanay ku xiran yihiin so how can we give back to the community with that influencing maartay I mean that number huge number of followers hadda ka horna waa dhahe like horta runta waayo qofkii hadda oo yani giving back to the community as sameynaysid you at least have something adi ku naftaada inaad soo fikirtid dan shacabkaada u soo laabatid laakiin waxaa jira waxyaabo oo yani giving back to the community oo adiga sameyn kartid oo laakiin lacag kaaga baahneen all it needs effort waa so Soomaalida most of the time yani markii influence noqono dad badan ugu soo xirmaan we only take you don't give back and that's the biggest problem because yani dadku kugu xiran ku fiirsanayo ku daawanayo qalbiyadooda yani lacag anaka ma siino but way na daawadaan sax we give them entertainment yes so entertainment igas wax ina raacsiisid waa at least hadda xataa wax raacsiinaynin yani waxyaabaha aad soo gudbinaysid waxyaabo oo ha noqdaan yani wax ay ka faa'iidi karaan even though like dadkeena shacabkeena generation hada jiro right now they like wax barasho ma jecel horta ina baashaalaan jecelin so adoo la baashaaleysid haddana yani wax oo faa'iido leh ku celin karta that's what I believe ani hadda most of the time yani wax oo faa'iido leh oo hadda dhihi kar faa'iido leeyihiin ma soo gudbiyi laakiin at least what I do is Soomaaliya dadka kala bara wixii ka helo wax ku qabta although حتى games kay hadii loo fiirsado behind it yani something educational ku jiro so either haday ahaato maanta wadankan wax Soomaaliya kala baratid either haday ahaato su'aalaha ku weydiinayo waa ka jawaabi kartid either haday ahaato like game oo maskaxdaada korinayo like somehow something ku jiro laakiin hal mid oo influencers ka waanay waxa waay hada wax kordhin karin waxa haleeni yeah so at least that's the giving back to the community as a main kartid waxa waay ina yani ilmaha waxyaabo qaldan oo soo gudbinin yeah true qofkii haysta let's say 1 million followers fursad sida u banaan fursada oo asaga ganacsi soo bisan kara brand endorsement soo bin kara even asaga naftiisa dhahro waxaan u sheegay inaan soo bin kara dropshipping like you can get a product from China magacaada ku qoran dara soo qaadan magacaada ku qoran what are some of the opportunities ay arkin dhalinyarada Soomaaliyeed hadda oo ka qarsoon u sheegi lahayd in terms of let's say I have 1 million followers okay waxaan qaban karaa a lot of things qaban kartaa sax hadda saa sheegtay boo yani hadda million people ay kugu xiran yihiin somehow influence ku leedahay haday ahaat maanta libiska ku soo libisatid there is dhalinyaro adika yar mise kula fac would want oo dharkaas rabaan inay soo gashtaan so what you can at least do like markaadan brand aan sameynaynin oo aadan shirkad magacaada ku soo qoranaynin oo lacagtaas ahaysanin what you can do is real life kaada tus kartaa dadka so they would want yani qofkaanay maanta muxuu wataa there is a lot of influencers oo maanta waxay soo gashtaan biri suuqa viral kan noqonaa yes so marka viral kaasay dharkaas uu noqonayo dadkii iska lahaay waxay ka faa'iidooyin so you should like deal ina la soo xiratid maalin kasta dhar soo xiratid viral noqdo la soo gato you are faa'iidoosa
dadka way faa'iidooyin dukaankina uu faa'iidooya so at least meesh ugu yar oo waxa ka samayn kartid is there also dad waxaa jiraan like normal life kooda soo gudbiyo hadday noqoto like furnitures gurigaada soo yaalo maanta cuntada karsatay all of that hadda influencer taa lacag wax ka samayn karta okay yeah laakiin ma dareensana de problem ma la fahamsanaya xagga gabdhaha u maana ana horta waxaan ka mid ahay dadka aad ku taageero unfortunately markaan dhaa Coco Bule follow there are over 10 Coco Bules on TikTok 10 over Instagram حالة فيرنا Instagram فيري Coco Bule mid waa 187,000 qolo socod mid 67,000 sawirada la qaadana balgelina so gabdhaha aad u taageera ka mid tahay and reason being no drama adigoo isgilgilis lagu arko adigoo saaysto lagu arko and gabdhaha faransi oo dar lahayd inay influencing business soo galaan still ayagoo modest lebiskoodana xijaabkooda iyo waxyaalaha maaragtay aan munaasabka ahayn oo munkarka iska ilaali karaan si u waanin lahayd gabdhaha inay soo galaan magac ka sameeyaan dhaqaale ka sameeyaan still maintaining their modesty iyo edebtooda oo drama iyo mar walba ku jirin oo qaar waxaa isbalamina guri hoos taagan oo soo degalay oo isdagaal rabo yeah horta marka influencer arabtid inaa noqotid koob intaadan noqon koob waxaa ka fikirtaa waxay dadku dhahayaan mug saameyn doonaan yani other people waxay adi kaafilayaan ama yani ku dhahayaan oo ani hadda like libiskay dad badan ka hadlo laakiin ma saameys I don't care like sometimes waxaa dhacdo eventyaal inaa la tago maybe dharweyn inaa soo xirto wallah wah tan libis ma taqaan maxaa waxay soo xirtay shaqo ma kulihi so marka muhiimadu waxa waaye when influencer noqotid you will find a lot of people oo yani in negative way ka hadlaa maybe positive way ka hadlaa positivity ina qaadan kartid negativity ina dhinac iska marin kartid haddaa is hubtid oo shakhsiyadaada taqaanid oo yani naftaada ku kalsoon tahay you can do social media horta ko saameyn ma kugu yeelanayaan dadka maybe hadda maanta wax qaldan samaysid also you can say like oh maanta iga dhacday baash qaladaas sameey algoba so saas aad dhihi kartid oo yani marka qalad gashayna apologize gareyn kartid all you need to be an influencer oo nidaamsan hadda gabartahay asturan dadka hadalkooda kooyo ku saameynin labo ra'yiga iyo waxa ka aaminsan tahay naftaada inay qofna bedeli karin iyo yani diintaada iyo meesha ka imaatay backgroundkaada ogtahay through the line yani marka viral noqotid oo caan noqotid meel badan aad jirto oo laga soo galaayo so jidkaada ina ka dhumin yeah Soomaalida waa dad iska karbaashka jecel adigoo xaq ku toosan lebiskaaga saxan yahay content-kaada saxan tahay yaa weli comment oo aflagaada iyo negative how do you deal with negative comments wallahi waxyaaris waxanuun xitaa ma ka dareemi when I see negative comments sometimes way qosliyaan been ku sheegay I just love in akhriyo like mentality oo bil aadan u fikiran qof banuuc u fikira so dad oo waxa jiraan yani jecel bin negative ka yani that's what make them happy so marka ana daabo ina negative sheegtid farxad ku helaysid go ahead dibni qawanis dad laakiin ma jiraan saxan habeenkii marka negative laga sheego so you need to have a thick skin way jiraan you have to have a thick skin inay waxaas dhan wax ka dhiban dawantay wax ka dhibi karin waxa waaye inaas opti waxaas la sheego ina aad ahayn ma witihid bamo so why is it bothering you yeah su'aalaad u dambe qofkii maanta social media I mean influencing business oo galaya ma kula talin lahayd multi platform inuu TikTok gala YouTube u gala inuu Facebook galo I know ala bulshada way kala saameyn badan yihiin for example hadda mid what do you call mid u saameyn badan hadda I think waxa weeye TikTok waaye so qofkii soo galo ma dhihi lahayd platformyaha kulli soo gal ama one specific platform uu ku bilaabi karo ma dhihi lahayd horta darabtid ina meel ka gaartid you should
hal meelna ku stigrayso hal meel majority lagu yaqaano ani hadda TikTok waa jooga but TikToker mihi like I have 700 subscribers but still I'm not a TikToker what I believe because every day I'm so gili like maalintii I feel like oh man TikTok oo xiiste that's when I go there so gili yes so majority wax lagu yaqaan every day I so gili oo consistent ah ku hayso YouTube so dadka maxay yaqaanaan koko YouTube barad waay yeah so marka hada meel focus gareynaysid you should focus on one place but meelaha kala joog ka warhay laakiin hal meel hal uu barto yeah so you start with the TikTok gaada ku yakaa yes hada TikToker tahay TikToker ka ku yakaa make sure inuu TikTok gaada oo yani consistent aku tahay oo maalin kasta soo gelinaysid oo loyal audience ah haysatid and the rest of the things dadka aad inta joogan xaggan way ku joogaan because they follow you on all the platforms and saade ku sheegay koko bulada maanta qorta Instagram 5 ku soo bixi am ka badan with so many followers some of them a lot of catfish accounts how do you deal with that say verification lama soo mala qaadan karo so that at least horto problemku wasas ku dhacay waxa waay is dhihi kara ani ahaan yani social ka marka YouTube ka soo galay ama viral ka noqonay social waa isticmaalay laakiin ma ku badneen like they were existent like wax ma soo dhigi jirin most of the time ana class marka viral ka noqonay I was scared yani I didn't wanted social life ki kaleeta ina yani dad badan ay soo galaan waxaan ka cabsoon jiray like social media waa ka cabsoon jiray basically so and it happened like a lot of people in samaystaan wali soo raadina so meelahayga dhan waxa deactivate dhahay so other people make other accounts so they get more followers so that was the thing but still whoever has koko magac ku qoran if they not doing yani waxyaabo khaldan ay soo gelinaynin ama qof ay ku taageereenaynin I let it be but sabrada ku aadi waay muuqaalada ku aadi waay ay soo gelinayaan yeah and I think you can even do other things qof ay lacag ka qaadan karaan sama yes but like most of my audience know like this is not my real accounts and I mar badan waa sheegay but still they're there on the internet like in kuwa verified waa basically so qofkii si fiican yaqaan they would know in a course fake okay yeah so ashu dambe dhalinyarada qoy bari oo aad ku taageera especially gabdhaha bal fariin u dir ina waddanka joogtana waa anything like ay ka faa'iideysan karaan ama like any advice especially kuwa gabdhaha or like in general gabdhaha or the ones who want to join social life in gabdhaha generally okay gabdhaha in general I say whatever you put in your mind yani wax sameyn kartiin صح codadkiina meel dheer way gaari karaan riyooyinkiina waa rumayn kartiin whatever you start ina sameysid make sure ina dhamaadkiisa ina tagtid yani hasab dib ina usoo laabatid markasta oo wax aad sameysid started from the beginning and see until the end then you will be successful that's what I believe okay ani ahaan when I was joining social life I was so scared I was afraid but afraid kaas maxaa u bedelay few and purpose kayga power oo noqday so if I can do it I can also make it masha Allah waxaa meeshan ka salaantaa gabdhaha Gaaris Wajeer iyo Mandera salaan leh horta a lot of comments oo dhahayaan I'm from Wajeer ma like TikTok YouTube everywhere oo ka arkay Wajeer Garissa Mandera kulligiina say jeceshiinani jecelahay thank you very much for the support and inshallah one day I want dona and then we'll see each other inshallah especially gabdhaha Wajeer especially gabdhaha Wajeer yeah all the time like marka TikTok live soo gal xitaa they came on my life and they said like oh I'm from Wajeer I'm from Garissa yeah the most beautiful girls in Northeastern are from Wajeer okay gabdhaha u qura Wajeer keena inshallah one day Wajeer way baan doona si liiw faanay waa daal but I'll see it in my eyes inshallah laakiin wuxuu ku sheegay Saciid shalay waxa ka jiraan sheekada waa fake way okay magaalada way horumartay
شو شكذا سعيدة كويك تاعي سعيدة كويك كوكو بولي ولا الأداء ما سنتاي for this amazing opportunity فرصة إنه تاي أنا وفرحتنا يعني مشان ما this is your first interview سعودكم ما سعودكم ما wow well, that's a privilege for us ما دي شو أداء ما سنتاي ودنك هذا واي برنامج كات جلامي ده مارت معقول جانا كابت سكفريسو كل شيء جوارده كل استاجيا ما وشاري جارسيو محل فندرة ديديا محل ريد كاربت كمشة سك كونتيننا إن شاء الله. مستيار إن شاء الله on one of the fine days معقول will go there. So مارت كبدها also هذا شيء. But in the meantime keep up the good work. سيدا هذا أكو صعوته. هراء أسي صعب. You're doing an amazing job. And in the next 5 years. كل قفوا هم له who has projection and a vision. Where do you see Coca-Cola in terms of business, in terms of influencing, in terms of professional? والله سأشوف ألك تعرف after 5 years from today. From today. First, I have a vision. I made Coco Foundation. So, Haradena maybe 10 projects of Coco Foundation in a Kapta. 10 ويرته but like yeah we'll see it how نقطة and maybe I'll be a politician by that. Oh my days. Oh my days. But like one or that كيس وح أخبطه أو سفي عن وحوصلنا not the politicians or هذا الجيران. So hopefully in that time Somalia will be peaceful. So yeah. And business كيجا برانديز كهذا صوص إن شاء الله based on وحبرشة maybe نحفي عنك خبطة. So yes, that's that. Coco Foundation كل يكوي كان Somalia and قوميسته ما نكله قوي موجي وجرو Somalia كارثة Somalia Ethiopia نعيد كله تطلب إن عكلة الموضوع ولا شيء وكله جورسده مرة حسن بودكاست سبينا يا حنا لأن يرد وقوي بري كومنت اللي يسود هاتي أنا قاعد لأن يرد وقوي بري أكو وارتي ما هي لأن يرد Somalia لهالوس Somalia سمو كهالديسي Somalia لأن يرد Somalia ده ما أنت أقدم بس قبل وقوي بري عشان لكن حالة charity begins at home بيلقي Somalia متجين I really love to come there so هذا ما سنتهي. You will take me to Wajar, I'll take you to Mogadishu. Done deal. شكله هذا minute. We do an exchange. Yeah. And أنت أصلاً كسوق قبيلنا برنامجك. هذا ما سنتين دعوة ديال